halkani waa RTN. kulan wacan daawadayaal, halkani waa RTN. kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga. anigoo Farxiye Cabdalla Muumina ayaa barnaamijka toddobaadkan idinla socodsiinaya. waxaan ku eegayaa shirkadda lagu magacaabo Transfer Galaxy, waxyaabaha ay qabato iyo waxyaabaha cusub ee markaa bulshada ay u soo kordhisay. sidaad u jeedaanba waxaa toddobaadkan barnaamijka marti iigu oo igala qayb qaadanaya Mustafa Cusmaan Ibrahim oo isagu ah madaxa suuqgeynta ee Transfer Galaxy. marka hore kusoo dhawow barnaamijka ganacsiga RTN oo aad marti ku tahay. farxad ma santahay walaal. waxaan runtii farxad bay tahay maanta inaan halkan RTN aan ku soo booqdo iyo Nairobi ba. waa tahay Transfer Galaxy maxay tahay, maxay qabataa, bal daawadayaasha iyo inagaba sharaxaad inaga sii. Transfer Galaxy waa xawlaad casri ah. waxa aan ka fikirnay markaan isweydiinay baahiyo badan. Transfer Galaxy waxaan aasaasnay 2014 waxaan markaan aragnay baahiyo badan oo jira. baahiyahaas oo ay runtii aan isleenahay waxyaabo badan oo la taaban karo ayay ahaayeen. marka Transfer Galaxy waa xawlaad casri ah, online system ah oo qofku maanta isagoo gurigiisa joogo website intuu booqdo kadibna uu iskii lacag u dirsanayo. marka Transfer Galaxy waxa weeye xawlaad online system ah. isagoo markaa cidi ay caawin buu intuu galo dirsanaya. isagoo aan cidi caawin ayuu intuu website ka booqdo ayuu iskii u dirsanaya. waxa jiray markaan ku leeyahay baahiyo badan baa jira oo aan isweydiinay. baahiyahaasina ay ka mid ahaayeen maanta qofka Yurub jooga ama khaasatan maanta wadanka Sweden jooga wadooyin badan buu u mari jiray markuu lacag doonayo inuu diro. marka waxa qofkii aan u baajinay waa lacag iyo waqti. maanta qofka maanta Yurub jooga ama jooga qurbaha waqtigu lacag buu ku yahay. marka in markii hore uu lacag dirayo process badan buu mari jiray oo ay ka mid ahayd inuu train raaco ama inuu bas raaco ama inuu telefoon qabsado deedna kadibna uu yiraahdo lacagtii hebel baan u dirayaa hebel ha laga diro. markaan aragnay internetku maanta inuu adduunku meel walba uu ka shaqeynayo oo jiro oo xawaare aad u ballaaran ku socdo ayaan isweydiinay maxaa u abaabul weydeen hadiiba aanay jirin fikirkani in abaabushaan oo ah in qofku soo gurigiisa jooga inuu si sahlan lacag ku dirsan karo. marka waa baahi loo baahnaa ayay ahayd. runtii shirkaddan iminkaas si xawli ah ay u shaqeysaa. dad badan oo Soomaaliyeed way ka faa'iideen. waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin qofku inuu waqtigan u soo gaabinay in khidmad la taaban karo oo qofku ku qanacsan yahay uu helo. marka waxaan isleeyahay Transfer Galaxy haddii aynaan ku dheeraan xawlaad online system qofkuna uu si yaro deegaan soo gurigiisa jooga waqti kasta uu lacag maanta ehelkiisa u dirayo. waa tahay marka goormeed soo bilowdeen inaad maxay tahay aad furtaan xawaaladan waxyaabihii hal iyo laba markaan eegno idinku dhaliyo baahiyaha zaa'idka keenay inaad u sameysaan maxay ahaayeen? baahiyaha runtii nagu kalifay waxay ahaayeen 1 iyo 2 marka laga hadlayo. maanta marka degan tahay dal qurba ah oo aad shaqeyso waxa laga yaabaa qofku 8 saacadood shaqeeyo. laga yaabaa inaanu awoodin inuu bas raaco ama train u fuulo ama telefoon u qabsado waqtigu uu ku yahay. waxa kale oo iyadna barbar socota oo aan aragnay in maanta adduunka wadamo badan ay horumar ballaaran ka gaareen mobile money transfer. oo maanta wadankan joogno Kenya shirkaddan M-Pesa qof walba oo maanta dalka degan uu ka dharagsan yahay qaabka ay u shaqeyso sida ay dadku ugu adeegtaan. maxaa maanta markii ay aanay jirin ka hor iyo maanta markay jirto maxaa u kala dhaxeeya difference ah. marka maanta qofka M-Pesa haysta si fudud buu u adeegtaa. marka in maanta M-Pesa oo kale oo maanta dalkan joogno iyo in maanta qurbihii la isku xidho waa waxyaabaha aan isleenahay unique aan ku soo kordhinay mudaqadan aan runtii ku noolahay sida khaasan in dadkeena Soomaaliyeed ama dadka kale ajaanibka ay ku adeegsan karaan. maanta qofka halkan maanta yimaada kama soo qaad anigoo kale maanta
Nairobi baan joogaa ma soo qaadan lacag waxaan soo qaatay kaliya waa telefoonkaygii iyo kaarkaygii M-Pesa account ka furtay iyo kaarkaygii ana lacag soo diray haddii maanta yani berigii horena waxay ahayd in aad qof wacdo aad tiraahdo maanta Nairobi baan joogaa ama Mombasa aan joogaa fadlan wala lacag baan u baahanahay lacagta xawilaadii tago lacagta ay soo diray marka waxaan oo hayd marka qofkii inuu bixo xawilaadii uu tago oo xawilaadii uu tago oo kadibna uu soo caawiyo maanta kaba soo qaad haddii aad fasax ku jirto adigoo maanta fasax ku jira ayaad maanta ehelkaaga lacag u diraysa marka waxaan isleeyahay wax uniga waxaan isleeyahay shirkadaha kale kaga duwan yihiin oo wax runtii dadka bilaadanka baahi badan u qabeen qaabka ugu badan oo marka lacagta aad ku dirtaan haddii ay tahay Soomaaliya haddii ay tahay Afrika qaabka ugu badan oo aad adeegsataan maxay tahay qaababka ugu badan ee aan adeegsano imika shirkadu waxay u shaqeysaa waa mobile money transfer-ka lacagaha mobile-ka wan toos bay qofka ugu dhacaysaa waxa kale oo iyadna barbar socotay in qofku xafiis ka soo qaadan karo oo ay jiraan shirkado la shaqeeyno oo kale marka aynu ku soo noqono qofka maanta doonaya inuu fahmo adeega transfer galaxy maanta khaasatan waliba dadka jooga Sweden oo kale adeeg runtii ballaaran oo ay baahi u qabaan ayaanu sameynay oo ay kaga faa'iideysan karaan waxyaabo badan oo aynu soo hadal qaadnay oo ahayd in qofku waqtigii loo dhaqaaleeyay oo ahayd in qofku loo dhaqaaleeyay khidmadii iyo in systemka iyagu 3 luqadood ayuu maanta website-ka ka kooban yahay qofku website-ku booqanaya kadibna markuu booqdo 3 luqadood ee ku jira xagga ugu sareysa ayuu taabanaya hadduu English garanayo hadduu Swedish garanayo iyo hadduu luqadiisa hooyo Soomaaliga u baahdo 3 luqadood markuu doorto wuu isdiiwaan gelinaya markuu isdiiwaan geliyo kadib markuu isdiiwaan geliyo wuxuu ku gelayaa adeeg la yiraahdo mobile bank ID oo runtii Sweden imka ilaa waqti badan ka shaqeynayo qofku inuu si sahlan ku gali karo account-ka oo basidan bankiyada international-ka ama marka account ku leeyahay international bankiga system lagu galaayo marka systemkaas oo kale dadku ay ka dhageysan ayuu ku galayaa si yar fudud kadib qofkii lacagta u dirayay ayuu diiwaan gashanaya oo hadduu joogo Soomaaliya hadduu Kenya joogo hadduu Uganda joogo hadduu Carabaha joogo meeshuu joogaba si fudud lacag ugu diri karo marka waxa isleenahay system runtii ilaa heer maanta luqadii Soomaaliga ahayd ku diyaarsan ayaan soo kordhinay marka waxaan waa guul runtii aan isleenahay shirkadahan inaan dadka Soomaaliyeed maanta u soo kordhinay ayaa runtii waata sanadkeed marka hawshan soo bilowdeen marka la eegidinka shirkadda waxaa la aasaasay 2014 waxa aanu shaqo galay 2015 marka waqti runtii intii shirkadu socotay hawsheeda intii la dhisayay capacity-ga marka 2015 ayaan shirkadu toos u shaqo gashay waata waxa jira shirkado badan oo xawaalada ah oo marka qaabab kala duwan iyagu lacag ku dira haddii ay tahay marka qofka uu buuxo uu tago xawaaladii oo marka lacagtiisu ka soo qaato iyo haddii ay tahay marka mobilkiisa lagu shubo idinka maxaad kaga duwantihiin runtii waxaan kaga duwanahay markii hore wanaga soo hadal qaadnahay in qofka maanta Europe jooga in website booqdo website-ka markuu lacag uu galo qofkii halkiisa si yar sahlan lacagta ku soo diri karo maanta waxaad kale ogsoon tahay maanta qofka lacagta qaadanaya laftigiisa wax badan baan u fududeeyay oo in hadduu M-Pesa leeyahay uu qofku lacagta M-Pesa ugu soo dhacayso markiiba haddii uu xafiis rabo inuu ka soo qaato shirkadaha la shaqeynaya jiro waxa shirkadaha ka soo qaadanayo haddii maanta aad joogto Kenya ka soo qaato oo M-Pesa aad isticmaasho 23 seconds ay lacagta ugu soo dhacaysa wax ka yar hal daqiiqo waxaanay shirkadii hore lahayn marka run laga hadlayo marka baahi jirta ayaan anaguna runtii dadkii isu fudaynay waxa kaloo yadna aan kaga duwanahay shirkadaha kale dhinaca qiimaha maanta shirkadaha kale ee faa'iiga waxay qaataan khidmad ilaa 10% qaarkood waxay qaataan 9 maanta waxaan qaadanaa campaign baan sameynaa anagu soconaya ilaa 6 months 0.5 oo installer in qofku ku dirsado lacag marka waxaan isleenahay wax badan bay dadku runtii ka faa'iidayaan shirkadahan waata xarunta ugu weyn ee shirkadiina waa xagee maxay tahay faa'iidada la dhihi karo dadka markaa jooga Soomaaliya deegaanada Soomaaliya oo kale dadka jooga maxay soo kordhinaysaa xarunta waxay ku taallaa Sweden
waxayna kaga sii taallaa magaalo la yidhahdo Örebro baahi dadku ama Soomaali ha noqdaan ama ajaanib ha noqdaan shirkadu wax badan bay ka faa'iideen kos in loo dhaqaaleeyay waqtigii kaga bixi jiray waxa kale iyadna sumcad maanta dadka Soomaaliyeed ugu filan waddankan joognay Sweden waxaan ku guuleysanay 2 shahaado oo waddankaas runtii aad looga qiimeeyo waxaan 2016 ku guuleysanay Business Challenge shirkadii number 1 ku gashay aqoontii ay soo kordhiyeen sanadkaas aqoontii ugu quruxda badnayd soo kordhiyeen local ahaan magaalada aan deganahay Örebro la yiraahdo Örebro Golan wax sanadkiina lagu qabtaa hal mar 2017 buu ahaa inaan ku guuleysanay innovation shirkadii soo kordhisay wixii ugu dambeeyay ugu quruxda badnaa marka waxay ku tusaysaa in maadaama aan nahay niman dhalinyaro Soomaaliyeed fikirkan soo kordhinay dawladihii kale dalkan la joognay runtii ay qireen aqoonta keenay waxa kale oo meesha ku jirta in ilaa heer wasiir uu noogu yimaado xafiiskayga wasiirka ganacsiga iyo hal abuurku xafiiskayga ayuu nagu soo booqday wuxuuna runtii nagu bogaadiyay hawsha aan u hayno bulshada aan kula noolnahay ama Soomaaliya ahaadaan ama ajaanibka kale ahaadaan marka waxaan isleeyahay waa guul Soomaalidu soo hooyatay wax ilaahay lagu mahadnaqo waan isleeyahay in maanta dhalinyaro Soomaaliyeed fikirka ay la yimaadeen heerka ilaa heer wasiir noqoto inay soo dhaweeyaan marka ganacsi la bilaabayo waxa uu caqabadihiisa nooc doona ha ahaadee waliba marka laga hadlayo shirkadaha xawaaladaha meel waliba ama wadan waliba way ku taala marka maxaa caqabadaha oo aad la kulanteen markii hawshan aad bilaabayseen runtii waa sidaas sheegtay wax walba caqabad bay leeyihiin haddii caqabad la kulanto maaha inaad runtii aad niyad jabto runtii labada sanadkii ugu horeeyay caqabado badan baa lagu horyimay oo la taaban karo koole oo laba leh laakiinse waxaan istusnay haddaan wax walba aan caqabad lahayn guul lama gaaro marka run laga hadlay marka aniga oo aan taataamanayn caqabadaas nagu horyimay laakiinse soo koobaya barnaamijku kooban yahay caqabado badan baa nagu horyimay marka caqabadahaasna waan ku soo gudubnay وأنا هاي لو ما هذي لكن سوى حب باهين دال حب باهين نتقف ودلاله كرت الله يمادو أنا نية شبين marka laga hadlaayo in qof marka uu lacag dirsado oo amreerkiisa ama qof kale oo meel kale jooga rabo inuu lacag u dirsado hadii ay tahay tan mobilka iyo hadii ay tahay mid marka caadi xawaaladu ka qaadanayo waxa jir lacag marka la iska qaado taasoo dadka inta badan markay lacag dirayaan ay ku xisaabtamaan oo ay leeyihiin hadii aan dir lahaa $300 kale ka soo qaad intaasoo lagu sii dirayo ayaa maxay tu isugaysa marka meesha aan 300 ka dir lahaa 200 iyo wax yar ka diraya dadka yiraahdo inta badan idinku maxaa kaga duwan tihiin dhanka marka la eego dhinaca markaan ka hadlayno farxi waxa weeye qiimaha marka khidmad maxaa qaadanaysa maanta qofka $300 qaadanaya $1 $1 iyo bad ay khidmad ka qaadnaa marka waxay dhigan tahay qof inaan warwar badan ku qabinba maanta haddii aan lacag dirayo $100 maxay khidmad u tahay marka teknolojiyada halkaas waa fikirkan keenay $1 baan ugu dirnaa marka tuu $300 dirayo waxa weeye $1 and half hadduu $400 dirayo waa $2 marka qaabkaas ayay noqonaysaa khidmadu marka mar kasta oo lacag badan oo dirayana way ka sii jaban tahay marka mar walba shirkadaha kale waxaan kaga duwanahay waxa weeye khidmadan ka jabanahay iyo qofku inuu helo xor u yahay haddaad 12 kameyno maanta aad u baahantahay lacag dirto maanta ka soo qaad qof baa Nairobi jooga xaaskaaga kale Nairobi joogta way xanuunsatay ama ilmahaagi baa xanuunsaday lacagtii dhakhtarkii baa laga rabaa xafiis waxa la soo hadashay qofkii xajiyga la soo hadashay ama waxa la soo hadashay qofkii eelkaaga ahaa waxaad ka lacag noocaas ayaan u baahana qofkii payfa isagoo haduu haysto si yaro dib bil lacag ku soo gaaraysa markiiba wax ka yar 23 second laakiin markaad xafiiska qaadan jirtay oo aad leedahay xafiiskii hebel uu xiran yahay oo ay tahay in xafiiskii xiran yahay oo ay tahay in adigana xafiis tagi karin saacadu ay saacad tahay aan suuragal ahayn processkii aad qaadan jirtay in aad sii qaadato ama taxi sii qaadato waxyaabahaas oo dhan ayaan isleenahay runtii oo kaga duwan tihiin innovationka waa fikirka aan la nimi dadkuna laftigooda baahi ay u qabeen ayay ahayd transfer galaxy markaan ka hadlayno dhinaca suuqgeynta aad u qaabilsan tahay waxyaabaha inta badan aad hadda qabato marka la fiiriyo Sweden haddii aad joogtay iyo haddii Nairobi aad joogto markaan eego
Sweden markaan joogno dee waa inaad dadkii la kulanto dadkii Soomaaliyeed oo aad fikirkii ka dhaadhiciso aad ka iibiso shirkadii oo tiraahdo xawlaadu waa shirkadii watan shirkadii kale waxaan kaga duwanahay aad baahidaad u qabta maxay tahay maxaa kale oo runtii aad leedahay ku soo kordhin kartaa shirkadii waxaa jirta 3 wiil ka hor kale waxaan ku qabanay Stockholm dadka macaamiisha baan la shirnay weydiinaynay fikirkooda dadku sidee u arkaan shirkadda maxaa cajibiyay maxaa caqabada marka mar walba shaqadeeda taas inaan dadka la hadlo inaan weydiiyo maxaa aragtida ka qabtaan shirkadda maxaa baahiyo aan ku soo kordhinaa waayo ganacsatadu mar walba waxay ka fikiraan inay shirkadooda horumariyaan marka waa in ganacsataduna macaamiishooda laftigooda ay runtii qanciyaan marka fikir ahaan anigoo ku hadlay magaca shirkadda Mustafa waxaan aaminsanahay in shirkaddu madax bay leedahay laakiin madaxdu ay tahay macaamiisha marka in mar walba macaamiisha aan qancino waxa kale oo runtii maanta halkan Nairobi sababtaan u joogno M-Pesa ayaan la shaqeynaa oo Safari marka Safari waxay noo soo gudbisay inaan la kulanno deedna kulankaasna imika muddo ilaa 3 cisho ayuu socday waxaan ka wada hadlaynay maadaama ay runtii Safari ay mobile money transferka runtii waddankan ay awood badan runtii ay gelisay aqoon badan ay gelisay in wada shaqeynta marka hore Soomaaliya Galaxy iyo Safari in marka hore aan isla soo qaadno waqtigan wada shaqeynayni waxaan ay runtii successful ah maxaynu hore uga sii socon karnaa maanta guulahan gaarnay maxaynu dadka maanta macaamiisheena idinka leedahay annaguna aan leenahay aynu ku sii qancin karnaa si macaamiisheena mar walba ay baahida koowaad iyaga yihiin sidaynu maadaama ay madaxdii shirkadda yihiin marka iyo waxa la yiraahdo digital lacagaha maanta la isugu dirayo mobile-ka in sidii wadamo badan loo gaarsiin lahaayo shirkadahan Soomaaliya Galaxy iyo anago iyo Safari ahaan sidii aan ugu hadli lahayn fikirkan laftiisa wadamo badan loogu baahan yahay jira sidii aan isu kaashan lahayn runtii aqoon fiican way leeyahay anaguna aqoon fiican ugu filan baan leenahay markaas waxyaabahaasna waxay ahayd runtii guuleen noogu soo dhamaadeen marka ilaa imise wadan ay xawaaladiinu gaarsiisan tahay imika ilaa waxaan ka shaqeynaa ilaa 25 wadan ayaan lacagaha u dirnaa Sweden ilaa 25 wadan ayaan lacagaha u dirnaa mustaqbalka waxaan doonaynaa inaan ku fidno adduunka oo dhan shirkad walba markay cusub tahay waqtiga qaadanaysa in marka dadka la baro laga iibiyo ilaa mise idinku qaadatay inaad dadka bartaan Transfer Galaxy oo dadku intay idin bartaan yimaadaan marka lacag ay ka dirsadaan runtii imika wada macaamiil badan baan leenahay runtii waddankan joogna Sweden khaasatan aan ka imi dadku ka dhigtay Transfer Galaxy waxay qabato macaamiil badan oo leenahay waan ku faraxsanahay runtii halkan maanta waxaan uga bogaadinayaa runtii aan salaan u diraya macaamiishayda waqti badan bay runtii isleenahay ay qaadan kartaa in dadku ay fahmaan laakiinse in mar walba anaga waxaan uga go'an in waqtigan soo gaabino oo dadku maadaama wax systemku sahlan yahay khaasatan dadka Soomaaliyeed maadaama aanay jirin shirkad kaliya maanta website-kooda ku soo bandhigtay luqadoodii hooyo adeegoodiina kadib ku iibinaysa marka waxaan noo suuragelinayaa isleenahay in aan si dhaqso ah ku gaadhno adduunka oo dhan in si dhaqso ah aan ku kasbano macaamiil badan in aqoonta aan la nimi fikirka aan la nimi in runtii ay tahay maanta qofku in website-ka booqdo luqadiisa hooyo uu taabto kadibna si yar oo sahla uu lacag ku dirsan karo wax kale oo qorshaha noogu jirta in meel kasta magaalo kasta iyo tuulo kasta inaan booqano kadibna dadka aan u bandhigno maxay tahay Transfer Galaxy maxaad ka faa'iideysaa runtii taas aan u bandhigno marka waxaan seenahay on wadayna in dadkana aan weydiino su'aalo oo wuxuu ku leeyahay Transfer Galaxy inaad ku adeegsato adeegaaga iyo in dadka laftigooda aan dhageysano markaan dhageysano waxaan leenahay wax badan baa idin ka soo baxay marka la eego website ay dadka inta badan ka adeegsadaan sidaad ii sheegteen marka Transfer Galaxy ay rabaan in lacag ka dirsadaan oo marka meelaha ay joogaan iyagu ay u diraan de marka Soomaali la yiraahdana waxa laga yaabaa in marka ay ku adagtahay in marka systemka ay isticmaalaan ma idinka marka hore barayo fahansiye kadib ay bilaabaan marka inay ka dirsadaan ila dadku isku mid ma ah absolutely waxaan ku talagalay markaan ku leeyahay magaalo kasta iyo tuulo walba ku booqanayna waxaan ku soo bandhigaynaa adeeg sida loo isticmaalo iyo qofku meesha uu gelayo step baynu geli doonaa qofku inuu website-kii booqdo
kadibna luuqadii uu doonayo booqdo oo uu doorto marka luuqada uu doorto afkiisa hooyo ah ama luuqadan kale Swedishka uu garanayo ama Englishba kadibna adeegii uu dhameystiro adeega markuu sameeyo isdiiwaangelinta markuu luuqadii doorto oo isdiiwaangeliyo kadib isdiiwaangelinta markuu dhameeyo isla markiiba waxa jira shaqaale u tababaranaya dadka caawiyaan maalmaha ugu horeeya marka qofkii toos markiiba anaga wacayna deedna oranayna walaal waxaan aragnaa inaad isdiiwaangelisay ma jiraan wax baahiyaad qabto hawlo halkan aan uga baahnay laga caawiyo halkaas maxay tahay marka mar walba shirkadu waxay u basishahay inay dadka ay runtii qanciso oo ay weydiiso su'aalaha ah waxaan ku caawinaa laakiin customer support ayaan leenahay 24 hour qaybaha dambe barnaamijkeena ee barnaamijka ganacsiga RTN isla soo gaarnay qorshihiina fog iyo yacni meeshaad rabtaan inaad gaartaan maxay tahay runtii qorshaha aan isleenahay haddii ilaahay ina gaarsiiyo qorshayaasha aan isla ka fikirayna doonayna inaan gaarsiino barnaamijka ganacsigu teknolojiyadu maanta halkay u soconayso ayaan doonayna mar walba in la sii jaan qaadno maanta smartphone baa la isticmaalaya waxa laga yaabaa 10 sano kadib in barnaamij waxyaabo kale la isticmaalo kasii casrisan maanta marka Yurub la joogo fingerprint baa lacagaha lagu bixiyaa maanta aqoonta halkay marayso oo ah qofku inuu telefoonkiisa touch ahaan ku bixin karo lacagta halkii lambar la qori jiray marka in laga fikiro ah in shaadana saa ugu eegto lacag diri karto waa aqoonta laga fikirayo marka aqoonta in la sii aynu dadka aqoonta leh waa qof ila mid oo kale oo keenay marka aniguna inaan aqoonta ka basii horeeyo oo aan ka fikirno ah maxaa runtii ka gulahaas aqoonta aad gaarsiin kartaan dadka marka kuleeyahay touch baa lacagta maanta lagu diraya maalin waxay gaaraysaa in isha aad saa ugu eegto kadib lacagta aad dirto waxa laga yaabaa in gaadho in sida fingerprintku bini'aadamka uu kala duwan yahay in haddii aqoonteeda la helo dabaysha qofka hawadiisa ay u kala duwan tahay marka waxaan isleeyahay aqoon in mar walba aqoonta aan la jaan qaadno dunida aan joognona runtii aan uga faa'iidaysano inaan ku dabaqno ama Afrika ha noqoto ama ha noqoto Aasiya ama adduunka kale ha noqoto marka waa isleeyahay insha Allah waan ku rajo weynaa mar walba inaan ugu dambeyntii transfer galaxy bulshada ku xiran ee ku daawanaya maxaa fariin hood uga tagaysaa runtii bulshada khaasatan macaamiisha transfer galaxy ee jooga Sweden waxaan runtii mar labaad iyo mar saddexaad waan salaamayaa dad kale aan macaamiil noo ahayn maanta waxaan runtii halkan aan doonayaa inaan fariin u gudbiyo ah waxaan soo kordhinay website runtii qurux badan oo ila luuqadii hooyo Soomaali maanta ku diyaarsan haddii aad booqato maanta www.transfergalaxy.com waxaad ka arkaysaa maanta in si sahlan aad lacag ku diri karto waxaad kaloo arki kartaa maanta in aan shirkadaha kale ka jabanahay dhinaca qiimaha marka waxaan leeyahay fadlan na soo booqda na tijaabiya marka insha Allah waxaan rajeynayaa inay dadkuna ku farci doonaan marka anaguna waxaan naga ballanaa in lacagtooda wax ka yar 23 second ay ku gaadho eheladooda aad baad mahadsantahay Mustafa adiga wada farxiya wahagaag daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ganacsiga RTN toddobaadkan waxaa marti igu ahaa Mustafa Cusmaan Ibrahim oo markaa isagu ah madaxa suuqgeynta ee xawaalada Transfer Galaxy intaynu mar kale kulmayno nabadgelyo halkani waa RTN